soo dhaweynayaa buu yidhi waxaanan u rajaynayaa inay soo gebagabayn doonto doorashadaani mid ay noqoto shacabka oo dhan ay ku wada qancaan. cabdinaasir calwaash oo jarmalka laftiisa joogana wuxuu yidhi waxaan u arkaa guul weyn oo u soo hoyatay dadka isku dhex noolaanshaha bulshada jecel. halkaad nagala socotaanna waa BBC London. markana kurdiyiinta waddanka ciraaq oo dariskii iyo dunidii kaleba ay ku kacsan yihiin markii madaxda gobolkaas kurdiyiinta ee waqooyiga ciraaq ay go'aan ku gaareen dadkooda kurdiyiinta ah inay afti kaga qaadaan inay ka madax bannaanaadaan ciraaq inteeda kale. madaxweynahaasi ee kurdiyiinta ciraaq Mascuud Barzani wacd wuxuu ku maray aftida berrito isniinta dhacaysa inaan dib loo dhigayn markii cadaadisyo la saaray. inkastoo cadaadisyada la saaraya ay caalamka meelo kala duwan kaga yimaadeen haddana waa uu diiday. mar dhow waxaanu u gelaynaa cawaaqibka arrintaasi ka imaan kara. aanse eegno marka hore warbixintan uu qoray wariyaha BBC-da Sebastian Osher oo leh go'aanka kurdiyiintu durba waxa uu dhaliyey Iiraan inay joojisay duulimaadyadii tegi jiray Kurdistaan. Mascuud Barzani waxa uu aad u doonayey inuu caalamka gaarsiiyo qadiyadda kurdiyiinta oo dad badan oo kurdiyiin ah ay dareemayaan inaysan taageero ballaaran amaba taageero oo dhanba ka helin caalamka intiisa kale. Barzani waxa uu xusay doorka muhiimka ah ee dagaalamayaasha kurdiyiintu ka qaateen dagaalka lagula jiro kooxda sheegata dowladda islaamka. waxa uu sheegay in codbixintu ay tahay oo keliya tallaabadii ugu horreysay ee hab ay ku soconayaan, laakiin ayna jirin wax dib u noqosho la yidhaahdo ee sidii hore xaalad u ahayd. waddamada ay jaarka yihiin Kurdistaan waxay soo saareen digniino aad u ba'an oo looga digayo qabashada aftida. Iiraan waxay haatan joojisay duulimaadyadii dayuuradaha ee tegi jiray ama ka imanayay Kurdistaan, iyadoo dhoolatus milatarina ka samaynaysa xadka agtiisa. Turkiguna uu sidaas oo kale samaynayo. gobolka neefta ayaa ku dheggan. waxaa dhici doona aftida isniinta kadib, taas oo la hubo inay si xoog leh ugu codayn doonaan haa, waxaan rabnaa madax bannaani dadka kurdiyiinta. axmed mahadsanid. haddaba waddamada Iiraan iyo Turkiga oo gobollo dalalkooda ka mida kurdiyiin ay degan yihiin oo aan la dhacsanayn waxa ka socda waqooyiga ciraaq kana walwal qaba in ay waddamadooda saamayso ayaa iminka bilaabaya dhoolatus milatari oo ay ka sameeyaan meelo u dhow xadka ay la leeyihiin gobolka Kurdistaan. ra-iisul wasaaraha Turkiga bin Ali Yildirim oo magaalada Ankara ka hadlayay mar dhoweedna waxa uu yidhi aqoonsan mayno wixii ka soo baxa aftida kurdiyiinta ciraaq. Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir statü değişikliği. Turkigu marnaba uma dulqaadan doono in la sameeyo ama in wax laga bedelo xadka koonfurta bari ee dalkaasi. aftida ka dhici doonta maalinta berrita ah waqooyiga waddanka ciraaq ma ahan mid sharciga waafaqsan, mana ahan wax jira oo la aqbali kara. haddaba ciraaq la garay oo dalkeeda ayaa kala go'aya ee muxuu yahay walaacan weyn ee Turkigu uu muujinaya marka la fiiriyo aftidan kurdiyiinta ciraaq. sida la xasuusto dowladda Turkigu dagaal muddo socday ayay la gashay 80-aadkii kurdiyiinta waddankeeda. tallaabadan kurdiyiinta ciraaq ay wadaana waxaa dhici karta in ay kiciso ama ay soo noolayso kacdoonkii kurdiyiinta Turkiga. wariyaha BBC-da ee Ankara McLowan ayaa ka warramaya. dowladda Turkigu xiriir wanaagsan ayay la samaysatay dowlad goboleedka Kurdistaan ee dalka Ciraaq, waxaana laga yaabaa inaysan aftida uga soo horjeedin sida ay u muuqato. Turkigu waxa uu ku biiray heesta wadajirka loo qaadayo mucaaradka caalamiga ah ee ka horjeeda aftida Kurdistaan, iyagoo ugu yeeray inay tahay khalad aad u weyn, kana digay inay tallaabadaasi dagaal sokeeyo kicin karto. taangiyada Turkiga waxaa loo diray xadka ay la wadaagaan waqooyiga Ciraaq. baarlamanka magaalada Ankarana waxa uu kordhiyey waqtigii ay ciidamada Turkigu awoodda u lahaayeen inay faragelin ku sameeyaan dalalka Ciraaq iyo Suuriya. sida cad waxaa jirta cabsi laga qabo in madax bannaani loo codeeyo ay sare u qaaddo kacdoonka kurdiyiinta ee waddanka Turkiga gudihiisa oo ay ku dhinteen 40,000 oo qof tan iyo 1980-yadii. laakiin cambaaraynta guud waxay u eg tahay in sida badan loola jeedo in lagu raaligeliyo taageerada dowladda ee saldhigga waddaniyadda. si gaar ahaaneed waxaa laga yaabaa in Ankara aanay cadaawad badan u hayn. waxay xiriir adag la dhisatay dowlad goboleedka Kurdistaan oo iyadu maalin walba 100,000 oo barmiil oo shidaal ah u dhoofisa Turkiga, iyagoo quudinaya baahida shidaalka ee Turkiga. dhaqaalaha Turkiguna uu ku socdo.
ilaa 1,300 oo shirkadood oo Turki ah ayaa ka shaqaysta gobolka Kurdistaan ee dalka Ciraaq, kuwaas oo dhisay tusaale ahaan garoonka dayuuradaha ee magaalada Erbil. waxaana Turkigu si weyn ugu tiirsan yahay ka horjeedka dowladda Kurdistaan ee kooxda mintidiinta ah ee PKK ee ka howlgasha waqooyiga Ciraaq. saldhigyo militariga Turkiga ayaa xataa halkaas ugu yaal sidii goob ciidamada ka caagan, iyadoo Ankara ku hanjabtay cunaqabatayn aftida ku saabsan saliidda la dhoofinaya ma joogsan. dayuuradaha rakaabka iyo ganacsiga ee Turkiguna way sii wadaan duulimaadyadoodii. waxa oo dhan waxay u muuqdaan boola xooftayn iyo istustus Turkiga, iyadoo albaabada gadaashooda looga hadlayo inay rabaan xasilooni iyo xiriirka labada dhinac oo sii shaqeeya wax kasta oo ka soo baxa aftida madax bannaanida loo qaadayo. axmed mar kale aad baad u mahadsan tahay. halkaad nagala socotaan waa BBC London. haddaba dadkan laga hadlaya ee kurdiyiinta waddanka Ciraaq oo berri Isniinta u diyaargaroobaya codkooda inay ka dhiibtaan afti ay doonayaan inay ku caddeeyaan inay doonayaan inay ka madax bannaanadaan waddanka Ciraaq intiisa kale, maxay u doonayaan inay ayahooda ka taliyaan? qaar ka mida oo jooga magaalada Erbil ayaa sidan qaba. غير رب العالمين نحن بنخاف من الله بس. ليش بدنا نخاف؟ haddii ilaahay idmo kama baqayno cid aan ilaahay ahayn. ilaahay ayuun baanu ka cabsanaynaa. waa maxay sababta aannu u baqaynaa? wax khalada ma samaynayno. tani waa xuquuqdayada, waana dalkayagii halkan. waxaa jira 50 milyan oo kurdiyiin ah oo aan lahayn dal. نحن 50 مليون كردي ضايع ماله بلد. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqalaya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. waa tahay magaalada Muqdisho wararka naga soo gaarayana waxay sheegayaan caawa niman hubaysani inay ku dileen degmada Waabari taliye ku-xigeenkii hore ee saadka u qaabilsanaa militariga Soomaaliya General Cabdullaahi Maxamed Sheekh Quruurux. sida BBC-da ay u sheegeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay inay mas'uul ka ahayd dilka sargaalkan. marsii horeysana ururka shabaab ayaa wuxuu sheegay in diyaarado duqeeyey deegaano ku yaala gobolka Gado ee Soomaaliya aanay waxba u geysan oo meel cidla ah ay duqeeyeen. marsii horeysay ayaa diyaarado la sheegay in ay duqeyn geysteen. waxa ay duqeeyeen baa lidhi shabaabka. diyaaradahaasi oo shabaabku leeyahay Kenya iska leh ayaa maanta marsii horeysay garaacay salaadii subax ee saakayto 4 gantaalna ku dhuftay madrasa la sheegay shabaabku inay leeyihiin oo ay caruurta wax ku baraan oo ku taala duleedka tuulada Ceelcadde ee gobolka Gado ee Soomaaliya. waa tahay halkaad nagala socotaan waa London. dowladda Soomaaliya mar kale waxay caalamka ugu baaqday in laga qaado xayiraadaha hubka ee lagu hayay tan iyo dagaalkii sokeeye ee 90-meeyadii. khudbadii uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu sheegay cunaqabataynta hubku inay caqabad ku tahay sidii dowladda Soomaaliya ay uga guuleysan lahayd amniga iyo dagaalka ay kula jirto shabaabka. waxa kale oo uu sheegay in xukuumaddu ay xooga saartay adkeynta amniga, balse natiijadii laga filayay qorshahaasi mixnad ay ku noqotay cunaqabataynta hubka. haddaba General Maxamed Ibrahim Gubir oo Ingiriiska jooga oo ka mid ahaan jiray generaaladii ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa wareystay wariyaha BBC Axmed Badar oo marka hore weydiiyey bal iminka in la joogo waqtigii Soomaaliya laga qaadi lahaa xayiraadihii hubka ee qaramada midoobay. ma habboon tahay ma ahine mar hore ayay habbooneed in laga qaado cunaqabataynta. haddii la saarayna in laga qaado aad iyo aad bay u mudan tahay, waayo
nimanka ka nabadiidka ay la dagaalamayaan waa in ay haysataa hubka ay haystaan ka casrisan hataa idan waa inay haystaan diyaaradahan helicopterke oo hubka uusan ku xirneen oo ciidanka lagu qaado oo maxaanku yidhahdaa lagu saamiyo waa in ay haystaan haddii kale weligeed nimanka nabadiidka lagama guulaysanayo lagama reynaayo laba nimoo isku hub wadatana kalama reeyaan. ma isleedahay dhibaatadii loo saaray cunaqabataynta iyo sababihii markii hore loo saaray in weli soomaaliya ay ka jiraan xilligan? kama jiraan. dhibaatadan hore looga soo gudbay dagaal ahli ahaa jiray beelaa beela ku duulay soomaaliya waa laga baxay beel hadda ku duulaysa ma jirto beel inay ku duusha laga yaabana ma jirto. dawlado deris ah haddii laleeyahayna haddee dawladaha deriska ayagaaba usoo gurmaday oo joogo ayadana laga baqi maataa wax maanta soomaaliya hub in la siiyo oo ay iska difaacda cadowgaa ku degay oo nolol iyo nabad u diiday ay isaga difaacda oo lagu salayn kara haba yaraatee ma jiraan. haddii ay noqotaba in cunaqabataynta dhanka hubka laga qaado soomaaliya maxay usoo kordhinaysaa ay kula tahay dowladda soomaaliya dhanka wax ka qabashada amniga? wax weyn bay usoo kordhin laheyd ciidan bay samaysan laheyd ciidanka hadda ilaa 18 baa la yiri 18,000 ma waa la siinaya haddaan hub lahayn haddaan wax nimankaan laskaga dhicin lahayn haddii mataqaana maxaan ku yidhaahdaa ay ciidamadii cadowgaas la dagaalamaya hub ka casrisan oo ka fiican soomaaliya ogow aniga hadda comedy diyaarada fighter ha la siiyo iyo maraakiib quusta ha la siiyo iyo mataqaanaa diyaaradahan oo B-52 ha la siiyo soomaaliya comedy ogow anigu waxaan ku leeyahay hubta asage ayagaan bahanan karine hub ay nimanka kan nolol diidkee nabaddiidkee ay kaga adkaadaan oo ciidamadii ha loo aasaasa la yiri la siiyo ha loo ogolaada. maxay kula tahay cabsida ay qabaan beesha caalamka oo intaa ay u daahday in cunaqabataynta hubka soomaaliya laga qaado? cabsi ay waxba ka jirin wey cabsi kutirikuteena wey waayo shalay embarkment soomaaliya maxaa loo saaray ma laga duulo qodobadii lagu saaray waxaa weeye warlord baa jiray waxaa jiray duulaan ay ayaga dhexdooda isku xasuuqeen baa jiray ma kenya etoobiya iyo soomaaliya ayay ku duulanaa embarkamentada loo saaray soomaaliya looma saarin ayagaa islaynayay ayaga dhexdooda isgumaaday markii la saaray cunaqabatayntaas tii ayada ahayd waa laga gudbay ma jirta hadda soomaali isku duulaysa ma jirta maanta. genaraal maxamed ibraahim gubir oo isagoo london jooga u warramayey wariyaha BBC Axmed Badar oo ka wareysanayay xayiraadaha hubka ee Soomaaliya saaran oo jananku uu sheegay haddii laga qaado inay wax weyn ka tarayso dagaalka ciidamada dawladdu ay kula jiraan ururka Al-Shabaab. dalka Kenya ismaandhaafka dhinaca siyaasadda ee xisbiyada ee doorashada bisha soo socota dhacaysa ayaa waxa ay keentay garyaqaanka dawladdu inuu faray dambi baarista iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqu baaritaan inay ku bilaabaan xubno ka tirsan guddiga doorashada bal inay suurtagal tahay iyo in kale wax dambiya inay galeen oo la xiriira doorashadii 8 Agosto dhacday ee maxkamadda sare wax kama jiraan ay ka dhigtay markii ay maxkamaddu sheegtay in la jabiyay xeerka. warkaas oo ay warbixintan ka qortay Mary Harper iyo urur goboleedka IGAD oo war qoraal ka soo saaray walaaca uu ka qabo habdhaqanka siyaasiyiinta iyo xisbiyada Kenya waxa warbixintan nooga diyaarisay oo soo jeedinaysa Firdawsa Maxamed Cilmi. xaaladda ku soo korortay doorashada Kenya ayaa ah in dacwad oogaha guud ee dalka Kariako Tobiko uu weydiistay booliiska iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa in ay baaritaan ku sameeyaan in dambiyo dhanka doorashada ay galeen xubnaha guddiga doorashooyinka ee waddanka. dacwad oogaha guud ayaa sidoo kale weydiistay guddigaasi in ay baaraan eedeymaha in 2 xubnood oo sarsare oo ka mid ah saraakiisha mucaaradka ay si sharci darro ah galaangal ugu yeesheen hanaanka kombiyuutarada ee guddiga doorashooyinka. dhanka kale war qoraal ah oo uu soo saaray urur goboleedka IGAD ayaa xoghayihiisa fulinta Maxbuub Maalim waxa uu ku sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee doorashada Kenya kuwaasi oo su'aal gelinaya awoodda guddiga doorashooyinka ee ah in uu qabto doorashada ku-celiska ah ay waddanka u horseedayso xaalad khatar ah. sidoo kale IGAD ayaa ku tilmaantay baaqa ah in la qaadaco doorashada mid aan suurtagal ahayn isla markaana qalqal lagu gelinayo guddiga doorashooyinka.
si kastaba hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka kenya raila odinga ayaa ku adkaysanaya inuusan ka qaybgalaynin doorashada ku-celiska ah ee lagu wado in ay qabsoonto 26 bisha oktoobar haddii aanan guddiga doorashooyinka la bedelin. madaxweyne uhuru kenyatta ayaa dhankiisa ku tilmaamay go-aankii maxkamadda sare ee ay ku laashay natiijadii doorashadii dhacday 8 bishii agosto in ay ahayd afgembi garsoor. waddanka gaana waxaa jooga khubaro ka socota midowda yurub waxaana ay eegayaan tallaabooyinka dowladda dalkaasi ay qaaday si sare loogu qaado wax soo saarka khudaarta iyo nadaafadda goobaha ee laga dhoofiyo. 2 sano ka hor ayay ahayd midowda yurub markii ay mamnuuceen khudaarta ee beeraleyda dalkaasi yurub ay u diraan iyaga oo markaasi ka waswaasay heerka tayada. haddaba warbixin arrintaa ku saabsan ayaa waxaa noo diyaarisay BBC-da waxaana soo jeedinaysa Firdawsa Maxamed Cilmi. xayiraadan ayaa lagu soo rogay Ghana kadib markii ay ku guuldareysatay heerkii loo baahnaa si ay khudaarta ugu dhoofiso dalalka midowda Yurub. 5 nooc oo khudaarta ah ayaa la ogaaday in heerka nadaafadooda ay hooseysay oo ay ku jireen cayayaano. Felix Kamasa waxa uu ka ganacsadaa beeraha waxa uuna u dhoofin jiray dalalka Yurub basbaaska. waxa uu sheegay in tan iyo markii xayiraada lagu soo rogay ay ka khasaartay lacag dhan $800,000. Felix Kamasa ayaa hadda wada tallaabooyin uu sare ugu qaadayo tayada khudaarta u soo go'do. waxaan casuumnay dad ka socda Faransiiska. waxay sameeyeen baaritaan iyo qiimeyn ku saabsan suuqyada caalamiga. waa yimaadeen waxayna ku wareegeen beerta. waxaana sidoo kale ayna siiyeen talooyin iyo tababar ku aadan arrintani. waxaan si wadajir u bilownay tababarka. kadibna waxay noo sheegeen in iminka aan buuxinay shuruudda heerka aan wax ugu dhoofin karno suuqyada Yurub. dowladda Ghana ayaa dhankeeda dib u habeyn ku samaysay goobaha wax laga dhoofiyo ee dekedaha dalkaasi. dowladda ayaa rumaysan in habacsanaan ku timid hay-adaha dowladda ay sabab u ahayd in dowladaha midowda Yurub ay mamnuucaan khudaartii loo dhoofin jiray. waxaan adeegana u shaqaalaysiinay khubaro sare oo ka socda jaamacadda Ghana si aan u bedelno muuqaalka maamulka iyo shaqaaluhuba. waxaan sidoo kale sameynay wax walba oo lagu xaqiijinayo sare u qaadida dhanka adeega. tani waa markii labaad oo khubaro ka socota midowda Yurub ay dib u eegis ku sameeyaan qaabka ugu wanaagsan ee dalka Ghana looga dhoofin karo khudaarta. markii ay midowda Yurub mamnuucayeen khudaarta loo dhoofiyo ayaa waxa dalka Ghana ka soo gali jiray sanadkii $10 milyan khudaarta uu u dhoofiyo dalalkaasi. xilli sare loo qaaday daryeelka iyo adeegyada dekedaha dalka Ghana ayaa waxaa lagu wadaa in midowda Yurub ay dalkaasi ka qaadaan xayiraada ay ku soo rogeen khudaartii loo dhoofin jiray. Firdawsa aad baad u mahadsantahay. halkaad nagala socotaana waa BBC London. wararka isboortiga aan u galno. maraykanka waxaa ka taagan xiisad ka dhex xaloosan madaxweyne Donald Trump iyo naadiyada iyo ciyaaryahanada caanka ee kubadda kolayga. madaxweynuhu meel fagaara ka hadlayay waxa uu milkiilayaasha naadiyada ku yiri ciyaartooygii muusiga calanka marka la isu taagi waaya ay xurmeyn waaya shaqada ka eriya. taasi waxay dhalisay naadiyadii iyo milkiilayaashii inay u midoobaan. arrintu hadda jiq ayay tahay. warkaas iyo wararka kale ee isboortiga aan idinku wareejiyo Cabdixaafid. xiddiga kubadda kolayga ee kooxda Golden State Warriors LeBron James ayaa madaxweyne Donald Trump ku tilmaamay inuu yahay nin xun. tan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii aqalka cadi looga taliyo Mareykanka uu kala noqday casuumad ay hore ugu fidiyeen kooxdaasi oo ku guuleysatay horyaalka kubadda kolayga ee Mareykanka bishii June ee sanadkan. Stephen Curry oo ciyaara kooxdan ayaa hore uga diiriyay inuu tagi doono casuumadaasi iyo in kale isaga oo sheegay inaanu jeclayn hadallada madaxweynaha. jimcihii aynu soo dhaafnay ayuu madaxweyne Donald Trump isaga oo ka qodbadaynaya isu soo bax u isticmaalay hadallo qalafsan ciyaaryahanada uu ka mid yahay Colin Kaepernick oo marsii horeysay si ula kaca isagu u diiday inuu isu taago heesta calanka qaranka Mareykanka isaga oo kaga dibadbaxayay cunsuriyad. Kaepernick, Curry iyo James ayaa ah ciyaaryahano madow.
madaxweynaha waxaa lagu eedeeyaa inuu isticmaalo hadallo adag. waa hagaag dhinaca kalena tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisu ka qabto dareen aad u wanaagsan xilli ciyaareedka sanad imika iyadoo saddexda kooxood ee ugu sarreeya kooxaha horyaalka Britain ay dhammaantood badiyeen. ciyaartii maantana waxaa wada ciyaaray Brighton iyo Newcastle. Brighton ayaana ku badisay 1 gool. cabdixaafid aad iyo aad baad u mahadsan tahay wararkaas isboortiga halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee BBC London. khiyaartan dhegeysanaysay wararkii aanu caawa idiin soo gudbinay doorashada Jarmalka iyo Angela Merkel oo mar afraad lagu wado ra'iisul wasaare dalkaasi u noqoto markii ay guuleysatay iyo wixii ka soo kordhay falanqayntooda waa noo aroorta haddii ay barraale ka noqdo xaggiina saacaddu marka ay tahay 7 aroornimo inta ka horeysa dhammaantii waxaan idin leenahay waa ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo intiinii ka qayb gashay ee aaraada ku kordhisatay barnaamijka annagoo inta kalena soo dhaweynayna tan iyo kulankeena dambe sidaas iyo nabaday.